dadaalada dhinaca xabad joojinta ee qasa ka soconaya ayaa u eeg mid ilaa iyo hadeerto aysan waxba kasoo naascadaanin waxaana wararku ay sheegayaan in ilaa iyo hadeerto wadahadaladu ay gelayaan kaalmihii ugu dambeeyey iyadoo maraykanku uusan doonayn mar kale inuu ku fashilmo arrimaha wadahadalo oo hadeer kuwii ruushka ayaa qirigi qira waxaana la sheegay in Stephen Witkoff uu marada tuuraya islamarkaana bariga dhexe wadhan uu ka doonayo in nabad lagu soo dabaalo dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa gaarsiisay wafdi aad u culus oo iyada ka socda fariina ka sida wadanka Iran say wararku sheegayaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka loo yaqaano Oman ayaa gaaray dalka Iran wararka ayaa sheegaya in Washington ay qortay qoraallo gabi ahaanba ay ku jiraan walxo iyo sidoo kale eray bixino hubka nukliyeerka ku saabsan iyo xog dheeraad Badri al-Basudi oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Oman ayaa ka degay magaalada Tehran isagoo fariinsida wuxuuna la kulmay dhigiisa Ambassador Raji waxaana ka wada hadleen si aad u xoogan ay u faaqideen sida wararku ay sheegayaan arrimaha dhinaca hubka iyo saanada ay doonayaan afayeenka aqalka cad dalka Mareykanka Caroline Leavitt ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka qoraalada uu ku daray in ay danta ugu wanaagsan ee Iran ay ku jirto inay aqbasho dhiilkan dambe ee la qoray sidoo kalena ay tahay inay hanaankan oo dhan ogolaato loona cadeeyay Iran kol kale in aysan weligeedii allaheed bam nuclear aysan gacanta ku dhigaynin Mareykanku isku suurtaweyn wararka ayaa sheegaya in dowladda Iran ay gabi ahaanba hadeerta darsiiso waxa qoraalka uu ku saabsan yahay Stephen Witkoff waxa uu arintan u dhigay qaab qoraal waxay gabi ahaanba inuu kaga jawaabi doonaa arrimaha dhowr ah sidoo kale waxaan eegi doonaa hanaan aad iyo aad xoogan tan ayaa imaanaysa iyadoo hadaba hay'adda International Atomic Energy Agency oo IAEA loo soo gaabiyay ay sheegeen in ay dowladda Iran ay kaydsatay ilaa iyo 400,000 oo kilogram oo uranium ah taasoo ay ku gaadhay in ka badan 60% isla markaana ay ku dhowdahay inay 90% oo baraxal ay dhigato dowladda Iran ayaa cambaaraysay hay'adda IAEA waxaana ku tilmaantay in warbixinta ay falkisay ee sirta ay ku saabsan in Iran ay haysato aad u badan oo uraniumka la kaydiyay ee ka dhigan tahay in hay'addu ay siyaasadaysay shaqadeedii isla markaana aysan hayn khibradlayaal iyo xirfadlayaal ay yiraahdeen dhexdhexaada madaxa guud ee hay'adaas IAEA Rafael Marion Grossi ayaa intii lagu guda jiray shir uu ku qabtay magaalada Vienna toddobaadkan waxa uu sheegay in ay dowladda dalka Iran ay ka gudubtay xayndaabka dhammaan xarkihii oo dhan ay goosatay laakiinse dowladda Iran ayaa sheegtay in hay'adda IAEA ay samaysay wax ugu yeedhay siyaasado iyo waxyaalo guracan sheekooyin iyo waliba eedeymo la dhoodhoobay oo dhammaantood sharci darrada ay soo turtay halkaasi wuxuuna ku tilmaamay in arrimaha noocaas oo kale ay muujinayaan hanaanka liita ee hay'adana ku shaqeynayso IAEA waxay sheegtay in warbixino ay ururisay tan iyo bisha bartamaheedii ilaa iyo 17 bisha ay ku ogaatay 408,000 oo kilogram oo u dhiganta 900.8 pound oo uranium ah oo 60% ka badnaanaysa oo loogu talagalay in ay wadanka hubka nuclear kale uu urursado ay urursatay taasoo 50% ay kordhisay ay yiraahdeen marka loo eego halkii ay bishii February wixii ay haysatay oo gaarayay ay yiraahdeen 133 kilogram taasoo ka dhigan ay yiraahdeen mid ama sida sanasa haatan dowladda dalka Iran waxay u muuqataa inay kaydsatay hub wax ay ku gaari karto ayaa leeyahay dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa sheegay in hay'adan ay gacanta ku dhigtay sirdoonka Israa'iil sida daraaddeed Israa'iil ay gabi ahaanba soo amaamuday warbixinta noocan oo kale ah jamhuuriyadda islaamiga Iran iyadoo gabi ahaanba aad uga xun in la soo saaray war noocan oo kale haddana waxay sheegaysaa in uu qildayta nidaamka dhiigacabka ee doonaya in uu wadankanaga soo weeraro kuwaasoo gabi ahaanba ka soo waaday isla markaana cabay dhiiga dadka carabeed ayay tan u tahay mid lagu gogol xaarayo Iran wax noocaas oo kale ma yeeri doonto Iran gabi ahaanba nuclearkeeda iyo barnaamijkeeda way sii wada doontaa laakiinse marnaba ma aaminsana inay hub u bedasho ayuu Ambassador Raji arrimaha noocan oo kale ayaa imaanaya iyadoo dhinaca kale la sheegay in dowladda Mareykanku ay haatan ay doonayso in laga digo ama laga hortago dhammaanba dhaqdhaqaaqyo imaan kara oo dhinaca dagaalka dowladda Mareykanka ayaa la sheegay hadaba warqadda ay qortay inay ka buuxday handadaad iyo sidoo kale talaabooyin ay ugu yeedhay inay ka noqdaan waxyaalahaas oo kale watribalka wararka cala dhinaca dowladda dabashana qiimaha badan ee gaanka caalamka oo dhan ee dalkii koonfurta Koreana doorashadii ayaa la filayaa in daqiiqad kasta lagu dhawaaqo kadib markii talada laga ceyriyay madaxweynaha dastuurka inuu bedesho isku day Yoon Suk Yeol taasoo la sheegay in xilka lagaga qaaday kadib markii lagu tilmaamay in uu sharci darro iyo isku day sharci afgambi dadban marshal law wax
loo yaqaano isku day December doorashada ayaa la sheegay in gebi ahaanba ay dadku ay weli ay sii wadaan hordhaceeda saddexda bisha ayaa si doorashada qaybteeda ugu dambeeyay dadku ay codeyn doonaan iyadoo wararku ay sheegayeen doorashada si aad u xoogan isha lagu hayo wadanka koonfurta Korea ayaa waxa uu wajahaya mustaqbalkiisa dhinaca siyaasiga sida go'aamada iyo cilaaqaadka uu leeyahay dalalka Shiinaha Mareykanka iyo waqooyiga Korea oo iyagu hub nukliyeer ay samaystay sidoo kale la ogaaday in agabyo hor leh oo ay ugu talagaleen in ay gebi ahaanba ku handadaan dalalka ay la soo banbaxeen inkastoo ay wararku ay sheegayaan in koonfurta Korea ay doorashadeedu ay noqon doonto mid hufan haddana ilaa iyo hadda waxaa muuqata in hogaaminta dhinaca doorashooyinka iyo didilada mucaaradka uu wado kadib markii xisbigan looga shakiyay maadaama madaxweynahoodii uu dastuurka bedeshay isagoo dadka waxba ka ogeysay wadamada Carbeed ayaa sii wada inay ka calaacalaan iswartaagii Israa'iil ee ka horsaagtay daanta galbeed isla markaana waxay sheegeen in arrinta noocan oo kale ay falxumo aad u xoogan ay ku tahay shan dal oo Carabta ah iyo dalka Turkiga daba socday ayagoo isdaba luudaya ayay doonayeen in ay tagaan wadanka baabaay iyo dadka baabaay hase yeeshee waxaa la sheegay in Israa'iil ay sutida u qabatay isla markaana u sheegtay inaysan saraga aagasi ka soo dhawaad doonin wadamadan ayaa siyaalo kala duwan waxay ugu tilmaameen in arrintan ay tahay masharciga caalamiga ka dhana sidoo kalena waxay sheegeen in haba yaraatee aysan u muuqan in ay sii socod doonto ayay yiraahdeen arrimaha noocan oo kala iyagoo ka digay in aysan indhaha ka qarsan doonin inkastoo wadamada Carbeed ilaa dirta ay diidan yihiin inay taageeraan oo ay baritaaraan dalabka ururka Hamas oo si dhaba u aaminsan in dagaalka la joojiyo gebi ahaantiisba Israa'iil iyo Mareykankuna ay sii wadaan iyaguna in ay marba ay qoraallo hor leh oo qoriyo qolaha soo saara si kastaba noqotee wadamada Carbeed ayaa ceebta aad ka xoogana ku dhacday waxay ahayd in sidoo kale duqeyn aad u baan lagu hayo qaybo kamid ah wadanka Lubnaan oo burbur aad u xoogan dooxada Beeka gobolka ku yaala laga geysanayo Israa'iil waxa ay sheegtay in ay gobolka ka atoorey doonto isla markaana waxay sheegtay inaysan asaraga iyo agagaas oo dhan aysan soo gali doonin Carabta iyo dadkaas oo kale wadamada Carbeed ayaa waayadii ugu dambeeyay oo dhan waxay la kulmayeen dhaleecayn aad u xoogan oo ku aad inaysan door rabin ay qaataan inkastoo Carabta ay marba ay meel kaga soo faruurayso hawl hor leh Israa'iil hadeerta waxay sheegeen inay ku tuntunsan doonaan dhowr arrimood oo ay kamid ka tahay inay joojiyaan ama ay ka hortagaan ay yiraahdeen markaasi hardanka iyo sidoo kale hayaanka aadka u xoogan ee ku soo socda dhankooda kolka ay noqoto ay yiraahdeen in xataa Suuriya laga hoos baxo dhaqaale ahaanna markaasi laga hoos saaro ay yiraahdeen hay'adda WFP ayaa sheegtay in ilaa 80 gawaadhi ah isku dayday inay geliso mar kale daanta galbeed iyo waliba andoo marinka qasa iyo daanta galbeed oo xoogaa qar ay u dirtay 770 laakiin wararka ayaa sheegaya in gebi ahaan ilaa hadeerto cid amniga sugta aan la garanayn kadib markii ay ururka Israa'iil iyo nidaamkooda ay go'aansadeen in ay dadka ay duqeyn aad u baan ay ku sameeyaan Israa'iil ayaa waxay wararku ay sheegayaan inay marba dadku markay cuntada ku soo xoomaan ay rasaas oo dadka ka qaadaso maadaama aysan dadka kala hori karaynin oo dadka in la kala hora waxay u baahan tahay in la dhax galo oo physical contact lala sameeyo dadka macnaha in dadka yani dadka aad riixi karto qofka taaba karto oo dabcan ayaa kamid arday basaasina miyaa jirta dowladda Mareykanka ayaa sii wada inay ciqaabto ardayda dalka Shiinaha isla markaana sida sheegayso tusaale ahaan Shenzhen oo u tagtay qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Shanghai subaxnimadii Khamiista saacada oo kadib markii Washington ay sheegtay in go'aan ka dhana oo ay dhigbaanba ku baabi'inayso isla markaana ku burisay dalku galkii ardayda Shiinaha ee waxbarashada u doonayay Mareykanka 22 jirkan ayaa ballan ka haystay qunsuliyadda waxaana u socotay gobolka Michigan si uu soo barto cilmiga isgaarsiinta laakiin sheeko kooban kadib waxaa la siiyay diidmo qayaxan loomana sheegin sababta waxaana lagu yiri oraska tag oo meesha iskaga kac waxaan noqday mid jaawareersan oo sidii qori daad wato hadba gebi dhacleynaysa ayay tiri Shano oo cabireysay meehanowgii iyo sidoo kale hubanti la'aantii iyo waliba dareenkii weeraxa markii loo sheegay in codsigeedii la diiday oo aan looba soo gaban maadaama ay horay gacan ugu haysatay warqadii aqbalaadda jaamacadda Shaw waxay lahayd in ay ka badbaaday xayraada lagu soo rogay ardada shisheeye laakiin mar qura ayay ididiladii ay ka qabtay in ay dalka Mareykanka wax ku soo barato ay lunta Mareykanku weli wuxuu hogaaminayaa jaamacadaha adduunka ugu fiican sababta ugu badan waxa la oran karaa waa saddex shay oo ugu waaweyn waxa koobaad Mareykanka waxa aad looga soo bartaa luqadda Ingiriisiga oo dabcan ayagu ay dadka aad u xoojiyaan qoraalkeeda siiba waxyaalaha kale laga soo barto Mareykanka waxa ka mid ah xirfadaha khaaska ah ee qofka uu doonayo inuu soo barto waxay isugu daraan tababar iyo dabcan dhigaal waxayna inta badan isticmaalaan farsamooyinka caadiga ah ee qofka in la tuso shaqada soo qabanayo kale ta saddexaadna waxa weeye waxa loo yaqaan sharafta
oo maraykanka jaamacad kaga soo baxay lafteeda ayaa ka qayb qaadata marketingka qofka hadhowto inuu shaqo helo ama suuq geyntaba markii hore talaabada maamulka Donald Trump waxaa loo qaatay mid kooban jaamacadda Harvard oo xarig joogsi ama xarig iskaga joogsi uu ka dhaxay aqalka cad hase yeeshee markii dambe arrintu waxay u ekaatay widespread sida ay wararku ay sheegayaan hadeerto dalka Mareykanku wuxuu u arkaa in ardadan Shiinaha loo soo diro mashino isla markaana ay dalka Mareykanka ay ka wadaan ayaa la yiri arrimo basaasid dawladda Mareykanka waxay ka baqsan tahay inay taasi dhacday isla markaana waxay doonaysaa in dadka Shiinaha iska fogeeyo arrintan hadaba ma aha mid kaliya ku eegan ama ku beegan dawladda Shiinaha iyo wali waxa ay aaminsantahay laakiin arrintu way sii darsatay xogaha gaashaandhigga dalka Mareykanka Beck Hassett ayaa si cad u sheegay isla markaana u tilmaamay in dawladda dalka Shiinuhu ay hadeerto qaban qaabinayso duulaano aad iyo aad u foolxun isagoo ka hadlayay shirka loo yaqaano Shangri-La Dialogue ayuu halkaas ka dhawaaqay in dawladda Mareykanku ay ogaatay faylka iyo nuqulka dhabta ee ku aadan qabanqaabada dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaqa isla markaana hal mar ku habsaa oo dawladda Shiinuhu ay go'aansatay Peter Hegseth xogaha gaashaandhigga dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay soo dhawaatay khatarta dawladda Shiinuhu ay astaysay ee ku dhanka ah Taiwan oo ay doonayso inay ku qaado taasoo sidoo kale khalkhal gali doonta amniga iyo badqabka caalamka oo dhan ma jirto sabab gabi ahaan arinta la soo indhato sidoo kale ma jirto sabab gabi ahaan aan loo dhihin khatarta iyo halista ka soo jeejila Shiinuhu waa xaqiiq maaha waa xaqiiq waana dhab waana soo dhawaatay wayna muuqata ayuu ka sheegay khudbada uu ka jeediyay shirka loo yaqaan Shangri-La Dialogue kaasoo wasiirka kaasoo ka dhacay dalka Singapore Beijing gabi ahaan waxaan haynaa xog dhaba in ay diyaarinayso dagaal ay u isticmaasho awood military oo gabi ahaanba ay doonayso in ay ku dheelitirto ayuu yiri awoodda Indo-Pacific gobolka la yiraahdo taasoo awoodda oo dhan gacanta loo galiyay lana siiyay imkaaniyaadka iyo waajibaadka ciidanka People's Liberation Army PLA oo gabi ahaanba si dheeri ah loogu tababaro isla markaana loo sheego macluumaadkii ugu dambeeyay iyo khiyaaraadkii ay u baahnaayeen iyo imkaaniyaadkii kale loo dhameystiray si ay u weeraraan Taiwan una qaadaan hawlgal ayuu yiri meesha maalin walba lagu soo bandhigayana ay tahay afaafka horey ayaad uga daawateen barnaamijyadeena Trabeelka iyo sidoo kale falanqeynaha heerka sare in dawladda maalin walba bardoodanka ay ku qabanayso Taiwan ujeedka ugu dambeeya oo ay tahay noqonayso way kaga fakata marka ugu dambeeyana ay arintu isku bedeli doonto gacankada isla markaana dawladda dalka Mareykanka wasiirka gaashaandhigga fahanka uu keenay shirka Shangri-La waxa uu ka muuqday in uu leeyahay bardoodankani wuxuu isku bedeli doonaa xabad dhaba isla markaana dawladda Mareykanku waxa ay la socotaa dhaqdhaqaaqa foosha xun ee Shiinaha ciidanka PLA kibi aamba waxa loo dhisay dhammaan imkaaniyaadka ciidan ee u baahnaa waxaan la siiyaa maalin kasta tababaro kuwaas oo dib loogu xasuusiyo heshiisyada sidoo kale waxa ay kaloo qaadeen talaabooyin muujinaya in la bedelay qorshayaashii hore ee tababarada iyo bandhigyada bardoodanka laabka ciyaarka ilaa iyo bishan January ee sanadkan taasoo ka dhigan in sanadkan dabayaaqadiisa ama horaanta sanadka dambe ama dabayaaqada sanadka dambe miyo wali midayna inagu garanaynin weer aad xoog lagu qaado Taiwan wuxuuna ku tilmaamay in Taiwan oo gacanta Shiinaha ku dhacda ay macnaheedu tahay wadamada bariga Asia oo dhan ay khatar gali doonaan habdhaqanka Shiinaha ee ku aadan wadamada iyo gabi ahaanba kuwa wadamada caalamka oo dhan gaar ahaan kuwa dariska ah waa wicitaanka hore ayuu yiri markaana waa digniinta koobaad sida daraadeed dawladda Mareykanka way ku baraarugsanta ma uusan sheegin dawladda dalka Mareykanka waxay sameeyaan doonto laakiin wuxuu sheegay in ay fahansan yihiin tabaha oo dhan waxaanu leenahay oo ku adkaysanana saaxiibada iyada oo dhan waxaan idleena sameeyo dhinaciina kana qayb qaata difaaciina anana way idila jirnaa ayuu ku gaabsaday sidoo kale waxa uu weydiistay wadamada gaashaanbuurta NATO ee gaar ahaan kuwa saaxiibka la ah ee Asia iyo gaashaanbuurta NATO in uu warsanayo Mareykanka in 5% wax soo saarka guud ee gudaha ee wadankooda the gross domestic product ay kordhiyaan oo ay ku dabaqaan ayuu yiri imkaaniyaadka dhinaca difaaca 5% galiya ayuu yiri tani maaha ayuu yiri gabi ahaanba wadamo aan idleeyahay war macna la'aan baati laakiin waxa idleeyahay khatar baa idinku soo socotay ka kaca ayuu ku celceliyay wuxuuna ku tilmaamay in uu markaasi marada uu tuuraya aysan ahayn mid beena dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee midowga Yurub Kaja Kallas ayaa ka daba qaadatay wasiirka gaashaandhigga oo dhinaca kale ku eedeeyay wadamada reer Yurub in aysan haba yaraatee aysan hadeerto baraarugsanayn laakiin waxa ay sheegtay in gabi ahaanba ay u muuqato in uu ku dawaqmay ama se gabi ahaanba ay dawladda Mareykanku ay kaliya oo ay ka maarmi laadahay midowga Yurub waad aragtaa ayay tiri
waxaan dhihi karaa ayay tiri waxaa jira jacayl sidoo kalena wuxuu nagu yahay jacayl qofku marka uu qofka ku dumo wuu nagu soo dumay ayay tiri sidaa daraadeedna waxay leedahay annaga waxaanu leenahay haba yaraatee Washington iyo Brussels waxa u dhaxeeya lama oran karo waa dubitaanka laakiinse waxaan dhihi karaa ayay tiri wax la hagaajin karo waad aragtaan ayay tiri waad maqasheen ayay tiri khudbadii halkan ka jeediyay waxaa muuqata in uu wuxuun wanaagsan ka yiri Yurub markii ugu horeysay ayay tiri waxaa jira xogaa jacayl ayay tiri iyadoo sheegtay dhinaca kalena in wadamada gaashaanbuurta NATO kaliya aysan Yurub isku halay doonin laakiin Yurub ay goortii horeysay go'aan ku gaadhay in ay qalab qaadato oo ay samayso wax allaale wixii karankeeda ee ku aadan in ay u diyaar garowdo loolan kasta Yurub waxa ay wajihi doontaa loolanka waxayna sameyn doontaa dhinaceeda inay ka qayb qaadato loolanka mana aha Yurub ayay tiri imkaaniyaad la isticmaalo oo meel iska yaala sidoo kale waxay sheegtay in ay dantooda yaqaanaan waxayna is weydiisay in dagaalka dalka Shiinaha qaabka loo dhigi doono oo noqon doono mid ugu dambeynta dhan u jahaysta